بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdibaasid Cali Raage waxaan ahay qof wax ka bartay caafimaadka dhimirka oo degan magaalada Oslo dalka Norway waxaan rabaa inaan wax yar ka yara tilmaamo caqabadaha la xiriira tahriibka iyo caafimaadka dhimirka badanaa dadka soo tahriibay waa dad dagaalo iyo qaxar hore u soo arkay waan ognahay wadada tahriibkan inaysan ahayn wada fudud waxa laga yaabaa qof uu la tahriibayay inay wax ku dhaceen si asaga mise iyada la afduubay waxyaalo kale oo aad u fool xun uu soo arkay naftiisana markuu ugu dambeysana ku biimeeyay suubadaas u soo dhaafo oo nolol fiican ugu samaysto Yurub Norway iyo dalalka la midka ah caqabadaha ka imaan kara marka dadka historyga noocaas leh xanuunada la yiraahdo xanuunada dhimirka oo la yiraahdo post traumatic stress disorder ay u badan yihiin oo ah xanuun dadka ku soo laba kacleeyo markuu soo galo jawi degan uu ka soo baxo marxaladda adkeed xanuunkaas nadaawo uu leeyahay oo sida lagu daaweeyo ayaa ah qofka inuu caafimaad helo dhakhtar iyo loo sameeyo nolol fiican oo degan oo qiimo qofka u yeelayso haddii marka aan fiirino hay'adda caafimaadka ee dunida sidee u qeexdaa caafimaadka dhimirka oo wacan caafimaadka dhimirka oo wacan waxay u qeexdaa in qofka bini'aadanka uu ku noolaado nolol fiican oo wax soo saarid leh oo naftiisa uu ku filnaado bulshada iyo bey'adu ka tirsan yahayna uu wax ku soo kordhin karo qofkaas isla markaan uu maareyn karo caqabadaha la xiriira nolol maalmeedka caadiga ah uuna dareemo inuu yahay qof qiimo leh naftiisa qiimo u leh bulshadana qiimo u leh marka haddii aan eegno qofka sharciga loo diiday oona lagu daray oo la yidhi waddanka ka bax miyuu fulin karaa marka qeexiddaas aniga waxaan u arkaa inaysan suurto galaynin sababta waxaan ognahay qofka marka uusan sharci waddanka ku lahayn oo la yidhi waddanka ka bax inuu xuquuq badan uu waaynayo ka mid ah caafimaad fiican iskuul shaqo iyo hataa inuu reer fiican samaysan karo waanu ognahay inay caqabado aad u fool xun mise badan ay kala kulmeen faamilada isku dayay inay dhudhuumasho ay faamilo ku sameeyaan oo carruur sidaas ku dhasheen marka walaalkay mise walaashay dhegaysanayso haddii arrintan aan soo sharaxay ee adiga ku qusayso oo maanta aad ku nooshahay nolol runtii aan sidaa aan u soo qeexnay aad ugu duwan oo aad ku nooshahay cabsi walaal isweydii marka yacni miyay istaaheshaa inaad noloshaada inta ka dhiman aad saas ugu sii noolaato ani waxaan u arkaa inaysan fiicnayn aysan nolol fiican aad ku noolaan karto hay-adaha iyo dadka marka ku caawin karo si aad nolol fiican u bilaawdid way badan yihiin marka waxaan si dhaba kugula talinaya walaal inaad dalbatid mise raadisid meesha aad caawinaadda u doonan lahayd wabilaahi tawfiiq